haweeney 7 nin jeclaatay, mid kastana waxay ku jeclaatayna ka sheegtay. Waxay tiri, noloshayda 7 nin baan bartay, inaan sheegana ka xishoon maayo. Waxay ila yihiin rag karoonayaal, jaceylkooda aan qalbigayga ka jarmayn. Mid kastana wuxuu leeyahay qiso iyo maxabbo u gaara, inaan ka sheekeeyo aanan ka daalin. Kan koowaad waa kii aan indhaha ku kala qaaday araggiisa, markii aan dherebta ku jiray ee la i dhalay. Isagaa i xambaari jiray oo xabadka igu qaadi jiray, dhabankana iga dhunkan jiray. Nacnac buu ii iibin jiray, marka aan ooyana iga qoslin jiray, ilinta iga tiri jiray. Wax kastaan u baahdana weligiis igalama baqaylin. Waa waalidkay, waa aabbahay, waa tusaalaha aan ku daydo, waana jacaylkaygii koowaad. Waxaa ku xiga ruux aan yaraanteennii isla ciyaari jirnay, hal caloolna iskala soo baxnay, hal sariir baan ku seexan jirnay, hal naas waan wada nuugnay, hal gurina waan ku soo wada barbaarnay. Waayo badan baan isla soo marnay, wax badan baanu wada oynay, wax badan baanu wada qosolnay, raashin waan wada cunnay oon iska daba cararnay. Kaasi waa ina aabbahay iyo hooyaday, kaasi waa walaalkay, saaxiibkii cimrigayga ee aan dadka ugu jeclahay. Mid saddexaad baa ii yimid oo aqalkiisa amiirad iiga dhigtay, igu caleemo saartay. Geesigii aan carruurnimada ku riyoon jiray ee faraskiisii caddaa igu qaatay. Waa wiilka iyo geesiga aanu kalgacal iyo naxariis ku midownay. Calankii caashaqa ayaa daarteenna dushiisa ka lushaa. Waa ninkayga iyo ciyaalkayga aabbahood. Caashaqu waa isaga keliya, cid kalena ku beddelan maayo. Mid afaraad oon imaanshihiisa sugi la'aa, caloosha aan 9 bilood ku siday, culays iyo culaab aan ku qaaday. Kolkii aan umulay aan urursaday, naaska ku duway oo nuujiyey, koriyey oo koolkooliyey. Kaasi waa gabanka aan dhalay ee beerkayga ka soo go'ay. Naftaan u hurayaa, beerkana waan u bixinayaa indhahayga nuurkooda. Mid lixaad waxaa dhalay inankayga ama inantayda. Wuxuu iigu yimid abtirsiimo xiriir ah, indhahayga ku qabowsada, waana ubadka dunida ugu qaalisan. Waa qaraabanimo xiriirta, waana xusuus iyo magac iga haraya haddii ay taydii timaado. Kaasi waa wiilka aan ayeeyada u ahay, wiilkayga wiilkiisa iyo wiilka gabadhayda. Waxay ii tahay ciise iyo sharaf marka isaga wax la iga weydiiyo. Kadib ilin baa indhaheeda sidii daadkii uga dareertay. Hadalkiibay in muddo ah dibnaha soo marin weysay. Ilin ay la dagaalaysay baana u diiday. Waxay markaas ku dhaheen, aaway kii 7, waad ka aamustaye, mise waad iska daysay? Waxay tiri, Allaan ka magan galay inaan kaas daayo, waayo